واي بسم الله الرحمن الرحيم ان waxaynu ka shaqeyn doonaa problemskan waxa layna weydiiyey inaanu soo saarno derivative-ka functionskan inagoo isticmaalna markaasi maxay chain rule isticmaalana chain rule waxaa la isticmaalaa keliyata marka ay function kale ku dhex jiro iminka halkan waxaad haystaa function ah x cubic minus 6x waxa weeyaan function kale ayuu ku dhex jiraa oo markaasi ku jibaaran oo 6 ah kani waa isaguna sin x ku dhex jira markaasi function kale oo 9x ah kana waa la mid marka waxa la isticmaalaa chain rule-ka marka function kale ku dhex jiro way waxaan soo qaadanaa ta koowaad oo noqonaysa sidan x cubic minus 6x power 6 and dy over dx waxay ku leeg tahay powerka xagga hore ku dhufo intan ku jirta marka dhexda ku jirta sideeda u soo qaado powerka qudhiisa ka jar hal powerka qudhiisa ka jar hal intii hore ee imika aad soo qaatay ee qowsa ku jirtay hadda ka saar derivative-ka way haddii x cubic aan ka saaro derivative-ka waxaan kaga saarayaa power rule anigoo isticmaalaya marka maxay noqonaysaa triga ku dhufo halka hore isagana halka jar triga halka hore ku dhufo triga qudhiisana markaasi maxay ka jar halka jar markaa way 6x ka saar 6x ku maadaama aanu markaasi wax jibaar la socon egasta waxay noqonaysaa markaasi 6x oo macnaheedu yahay egasta waxa u qorson 1 baa u qorson marka maxay noqonaysaa 1 lagu dhuftay 6 oo waa 6 egasta sida soo qaado 1 baa u qorson 1ka waxaad ka jaraysaa markaasi 1 baad ka jaraysaa way waxay ku sii leegtahay intaasi 6 soo qaadatay x cubic tan waa minus 6x 6 laga jaray 1 waa 5 halkan waxaad haystaa markaasi 3x 3 laga jaray 1 na waa 2 halkan waxaad haystaa markaasi 6x 1 laga jaray 1 waa 0 waxaan haysanaa markaasi 6 x square x cubic minus 6x power 5 iyo markaasi 3x square shay kasta oo lagu jibaaray sidoo lagu jibaaray waa 1 weeyi marka waxay noqonaysaa 1 lagu dhuftay 6 oo markaasi maxay 6 way talabaad waxay noqonaysaa markaasi waxay noqonaysaa talabaadi waxay noqonaysaa markaasi y ay waxay ku leegtahay sin 9x sidiisa la mid ah waxaa oranayaa dy over dx waxay in leegtahay ka hore oo markaasi sinka ah ka saar haddaan ka saaro wuxuu noqonayaa markaasi sinka derivatives wuxuu noqonayaa cosine buu noqonayaa qowska inta ku dhex jirta sidaas ka soo qaado anegasta hadda intii qowska ku jirtay hadda ka saar marka 9x haddaan ka saaro maxay noqonaysaa waxay noqonaysaa powerka oo 1 xagga hore ku dhufo halkan 1 baa u qorson 1na waxaad ka jartaa markaasi 1 ka jar markaa maxay noqonaysaa waxay noqonaysaa cosine 9x oo markaasi lagu dhuftay 9x power 0 waxaynu garanaa markaa cosine 9x shay kastoo lagu jibaaray 0 waa 1 markaa 9 lagu dhuftay 1 waa 9 way noqonaysaa markaa way ta saddexaad waxay noqonaysaa dy over dx waxay ku leegtahay cosine-ka ka saar marka hore functionka kuwaadda ka saaraysaa oo ah cosine wuxuu noqonayaa minus
markaasi sin inta qowska ku jirta sidaas ka soo qaado 3x cubic hadda intii haddaba qowska ku jirtay ka sar adiladankeeda leeyahay marka derivative ka sar oo wuxuu noqonayaa powerka ku dhufa halka hore waxay noqonaysaa 3 lagu dhuftay 3 inta badan waxaynu isticmaalaynaa calaamadda dots maxaa yeelay haddii aynu times isticmaalno waxay isku ekaanayaan xarafka x ama xa oo hadhow qofku waa markaasi ku dabaqaya marka haddaad aragtaan calaamadda yare dotka ah macnaheedu waxa weeyaan times way waxay ku leegtay markaa 3 lagu dhuftay 3 oo markaasi x ah isla 3gii maxaan sameynayaa waxaan ka jarayaa markaasi powerkii hal baan ka jarayaa intaas marka maxay leegtahay waxay ii leegtahay minus sin 3x power 3 iyo markaasi intana noqonaysa markaasi maxay 9 iyo markaasi 3 laga jaray 1 oo markaasi noqonaysa markaasi maxay 2 way tan kale waxay noqonaysaa marka iyaduna dy over dx waxay ii leegtahay kan hore sidaas ka soo qaado waxay noqonaysaa markaasi maxay ln x bay noqonaysaa powerka halka hore ku dhufo oo waa 9 isaga qudhiisana markaasi maxay waxaad ka jartaa hal ka jar kii aad markii dhaweyd soo qaadatay ee ln x-ka ahaa hadda ka sar marka ln x-ka derivative-kiisa wuxuu ahaa markaasi sidaan garanayno 1 by x buu ahaa way intaas maxay ku leegtahay marka waxay ku leegtahay 9 markaasi ln x oo sidaas ka soo qaadatay 9 laga jaray 1 lagu jibaaray oo markaasi 8 ah iyo markaasi maxay 1 by x haddii aan sii qurxino waxaan u dhigi karnaa markaasi 9 loo qeybiyey x oo gaar ah iyo lnx oo markaasi maxay lagu jibaaray 8 lagu jibaaray way ta ugu dambaysa waxaa noqonaysaa dy intaan horta dy aan dhigas aan u gelin marka hore waxaan u qoranaa markaasi form kale x4 waxay ii leegtahay oo kale x4 minus 8 iyo waxa isku mid ah markaasi halfka marka haddaad aragto sidan aragto waxay la mid tahay half bay la mid tahay marka calaamadii halkan taallay ee square root ka ahayd ay waxay markaasi aynu u bedelanay half baan u bedelanay si markaasi xisaabta ay noogu fudaato marka haddaynu ka shaqeynaynaa dy over dx waxay noo leegtahay sidii caadiga ahayd powerka halka hore ku dhufo waa 1 markaasi xagga lagu dhuftay intan dhexdaas ka soo qaaday sidii caadiga ahayd oo waa x4 minus 8 intii dhexda intaad soo qaadan halfka waxaad markaasi ka jartaa 1 ka jar intii hadda aad markaasi soo qaadatay square ee ku jirtay bracket ku jirtay hadda ka sar 4ka ku dhufo halka hore wuxuu noqonayaa 4x 4ka ku dhiisana markaasi maxay waxaad ka jartaa hal ka jar maaragtay 8kuna maadaama iska yahay uu number yahay wuxuu noqonayaa markaasi 0 buu noqonayaa derivative-kiisu intaas marka maxay noqonaysaa waxay ii leegtahay dy over dx waxay leegtahay halfka soo qaadatay x power 4 minus 8 iyo halkaas markaasi maxay noqonaysaa half laga jaray minus 1 laga jaray waa minus half halkan waxay noqonaysaa markaasi maxay 4x 4 laga jaray 1 waxay noqonaysaa markaasi 3 bay noqonaysaa keliyaad iyo 0 iskaga tegay okay halkaa waan kaga tegi karayaa laakiin waxaan rabaa inaan si qurux badan usii dhigo sar waxay noqon karaysaa oo kale half intan markaa waxay tegaysaa xagga hoose ayay tegaysaa markaasi lagu dhuftay square root of markaasi x power 4 minus 8 oo lagu dhufto markaasi maxay 4x cubic marka haddaad aragto 1 by haddaad aragto markaasi haddaad aragto x minus 1 half waxay la mid tahay markaad xagga hoose geenayso
x half bay kula mid tahay ama waxay kula mid tahay x oo markaasi maxay lagu square gareeyay xagga hoose marka waxay ku laag tahay ugu dambeyn si qurux badan markaan soo dhigno waxay ku laag tahay markaasi xagga sare waxa yaala 4 keliyata oo x cubiga xagga hoosena waxa yaala markaasi maxay waxa yaala 2 baa yaala iyo markaasi x cubic x power 4 iyo markaasi maxay minus 8 baa yaala haddii aan sii yareyno halkan 2 qaybi halkana 2 qaybi waxa weeyaan waa 1 halkana 2 qaybi waa 2 waxay sii noqonaysaa markaasi waxay noqonaysaa 2 keliyata oo markaasi x lagu jibaaray 3 iyo markaasi halkan oo markaasi keliyata x power 4 minus 8